Somali Kids TV. waxaa noo soo dhow bil barakaysan. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmada ugu weyn oo ina siiyey waa nicmada diinta. sidoo kale ilaahay wuxuu noo sameeyey waqtiyo barakaysan, xilliyo wanaagsan oo fadli badan oo cibaadadu ajirkeedu ay sii badan tahay. waa bisha ramadaanka. waxaa inaga xiga maalmo kooban. waa bil albaabada jannada la furi doono. sidoo kale waxaa la xiri doonaa albaabada naarta ayaa la xiri doonaa. dadka khayrka jecel, ajirka jecel, xilliyada ay ka faa'iidaystaan oo waxay ku tartamayaan janno iyo nimcada jannada taalay ku tartamaan. waxay jecel yihiin fadli fara badan oo dheer inay gaaraan, ay ku gaaraan ka faa'iidaysiga xilliyada noocan oo kale ah. dadka wanaagsanaa ee inaga horeeyey sida ay taariikhda qortay waxay ahaayeen dad u diyaargarooba xilliyada barakaysan oo ajirka laba jibaaran yahay bay u dadaali jireen, ay u diyaargaroobi jireen. sida ramadaanka oo kale, ilaahay waxay weydiisan jireen inta aan ramadaanka la gaarin in ilaahay uu gaarsiiyo ramadaanka si ay uga faa'iidaystaan, oy ajirka iyo khayrka iyo salaadii quraan akhriska u siyaadiyaan, oy ajir badan u helaan. iyo markii la gaaro waqtiga ramadaanka, ilaahay bay waxay weydiisan jireen inuu waafajiyo oo ugu kaalmeeyo samaynta camalada wanaagsan. marka bisha ramadaanka ay dhammaatana waxay ilaahay weydiisan jireen in ilaahay uu ka aqbalo camalkii iyo quraan akhriskii iyo salaadii iyo soonkii iyo sadaqadii iyo khayraadka faraha badan ay soo sameeyeen intii lagu jiray bishii barakaysneed ee ramadaanka. Somali Kids TV.